السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود kusoo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka Bollywood kanagoo kusoo qaadan doona qodobo aad u xasaasisan maqaal Box of India ay soo daawacday Akshay Kumar filimkiisa Lakshan Bambi oo tiyaatarada la saarayo xilliga la furayo tiyaatarada Hindiya shabakada Box of India ayaa maqaal ka soo daawacday superstarka Akshay Kumar filimkiisa Lakshan Bambi xilliga la daawanayo iyo tiyaatarada oo ay dib loo furi doono mar filimada Hindiya waxaa macquul ah in la saaro tiyaatarada Hindiya 6 bilood kadib maadaama la filayo 6 bil kadib in tiyaatarada la furo gudaha Hindiya balse wax walba waa macquul inay iska bedelaan sida loogu talagalay sidaas ay tahay Akshay Kumar filimkiisa Lakshan Bambi ayaa la qorsheynaya in tiyaatarada caalamka laga daawado sida ugu macquulsan waxaana la qorsheynaya in laga daawado wadamada sida UK, USA, Canada, Golofka iyo suuqyo kale oo muhiim ah filimka sida guud qaab online ayaa loo daawan doonaa balse qorshaha in tiyaatarada caalamka qaar ka mid ah la saaro waxaa macquul in wax iska bedelaan waxaa kaloo macquul ah in la saaro ganacsi fiican ay sameeyaan aflaam qaar ah ayaa 3 bil ka hor tiyaatarada caalamka laga daawaday sida Bag 3, Houseful 3 iyo Good News oo Golofka laga daawaday Simba oo USA laga daawaday iyo Dil Bechara oo New Zealand laga daawaday si kastaba ha ahaatee natiijooyin fiican kama soo bixin Dil Bechara wuxuu ku istaagay 43 milyan oo dollarka Mareykanka ganacsigiisa guud daafaha caalamka muddo 5 bilood ah uu saarnaa tiyaatarada laakiin Lakshan Bambi hadduu tiyaatarada dibadda helo natiijo intaas ka badan ayaa la filayaa sababtoo ah Lakshan Bambi Akshay Kumar ayaa hogaamiye ka ah tiyaatarada fiican ayuu helayaa sidoo kale online waa lagu daawanaa dhankaas marka laga soo tago dadka waxay u xiiso qabaan in filimo tiyaatarada laga daawado wayna ku soo yaacaan waa haddii fursadaas Akshay Kumar helo Lakshan Bambi waxaa la daawan doonaa 9 November isla sanadkan 2020 qaab online ayaa loogu daawan doonaa waxaana laga daawan doonaa shabakada Disney Plus Hotstar oo sudeyn doonta waxaa la filayaa tiyaatarada caalamka inuu helo isla waqtigaas fadeexada filim sameeye Anurag daba taagan iyo atirishooyin dheheen wana farxumeeyay iyo sumcadiisa oo lumi rabto Anurag waa filim sameeye caan ah kaasoo agaasimay aflaam ay ka mid yihiin Ganges iyo Marezan iyo kuwa kale filim sameeyahan oo jilayaal kala duwan la soo shaqeeyay ayaa muddo 2 sano ku dhawaad daba socota fadeexad aan dhamaad lahayn Anurag wuxuu ku jiraa raggii lagu eedeeyay anshax xumo iyo farxumeyn intii socotay ololihii Me Too haddaba mar kale ayay ku soo laba kaclaysay sheekada maadaama atirishooyin koonfur ah iyo kuwa reer Bengal ay ku dhagan yihiin atirishooyinka lagu magacaabo Bayal Gosha iyo sheegtay in Anurag ka dalbaday wax aysan afka ka sheegi karin iyo hadallo fool xun oo uu kula hadlay gabadhaani waxaana la sheegay inta filimkii la duubayay inuu ka faa'iideystay gabdhaha mid uu xujiyo iyo mid uu qaab dan ula dhaqmo inkastoo dhammaan eedeymahan wax caddeyn ah loo haynin balse atirishada reer Bengal Ruba ayaa sheekada sii kululaysay waxayna leedahay wax walba oo Bayal sheegtay waa run iyadoo hadlaysay wixii tiri Anurag isagoo Facebook isticmaalay ayuu ila soo xiriiray hadallo xun ayuu i dhahay isagoo galmo iga dalbaday markaan arkay anshax xumadiisa waan iska joojiyay hadalkiisa intaas kuma ekaan Anurag wuxuu isticmaalaa daroogo dadka la shaqeeyana wuu siiyaa ee fadlan hala baaro arrinkaas markii la baaray ciwaanka ay sheegtay ee uu Facebook kala soo xiriiray gabadhan 2014 iyo qoraaladii ay screenshotka ka soo qaaday dhammaan waxaa la ogaaday in ciwaankaas uusan lahayn Anurag ee uu yahay nin kale oo lagu magacaabo Anurag Safari haddaba arrintan wixii ka soo kordhan oo aan ila socodsiin doonaa Alia Bhatt filimkee Bollywoodka ku geli doonta Ganguba oo October duubistiisa dib u bilaabanayso Ganguba waa filim si weyn loogu tashanayo inuu dib u soo celin doono sumcadda Bollywoodka iyo waayahooda dahabiga waa mashruuc hadduu guul weyn gaaro ay Alia Bhatt awoodeeda ugu sarreysay heli doonto waa filim la filayo inay Bollywoodka ku bixi doonaan markii tiyaatarada la saaro maadaama sanadkan shaqadooda filimada habsan gashay Ganguba waxaa loogu hadlayaa nolosha haweeney waqti kooban awood ku haysatay magaalada Mumbai waxaana sheekadana mashruucan laga soo xigtay buugga uu qoray qoraaga lagu magacaabo Hussein Zaidi waxaana la islahaa filimkan qaybtii hore sanadkan ay duubistiisa dhammaan doontaan balse COVID-19 ayaa wax walba qasay haatan waxaa la sheegay inay dib u kulmeen Alia Bhatt iyo agaasim Sanjay Leela ayna ka wada hadleen in filimkan horaanta October duubistiisa la bilaabo waliba muuqaalada Alia Bhatt u gaarka ah ayaa la duubi doonaa waayo Ghazali wuxuu rabaa in dad badan la iskugu keeno goobta duubista maadaama filimkan taariikhi yahay dad badan inay ka soo muuqdaan ayuu rabaa muuqaalo qaarkood balse sharciyada dawladda isagoo ilaalinayo inuusan sii faafin caabuqa ayuu go'aansaday muuqaalada kaliya ay Alia Bhatt iyo jilayaasha
marka hore inuu duubo ganugubaa xilliga rasmiga ee la daawan doono weli shaac lagama qaadin. Sanjay Leela Ghazali kaliya ayaa laga sugaya xilliga la daawan doono filimkan.